بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث 260 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك ساعا من طعام أو ساعا من أقط أو ساعا من شعير أو ساعا من تمر أو ساعا من زبيب الحديث رواه مسلم إخوة الإسلام والإيمان maanta taariikhda islaamka ay tahay 25 bishii 9 Ramadaan sanadka 1441 isla markaana waafaqsan 18 bishii 5 sanadka 2020 waxaanu ku jiray mawduuceena ku saabsanaa ramadaanka iyo qaybihiisa kala duwanaa waxaan maraynay qaybtii ku saabsanayd zakaatul fidriga iyo xaaladaheeda waanu ka soo hadalay zakaatul fidriga xigmada ku jirta loo jideeyay waxaanu ka soo hadalay nooca la bixinayo waxaan ka soo hadalay dadkay ku waajibtay waxaasoo dhan waan ka soo hadalay wili asagaas aanu ku jiraa xadiidkeena saaka aanu qaadanayna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wardaaba wuxuu leeyahay kunna waxaanu ahay nukhriju kuwa bixiya id waqti kaana uu ahaa fiina dhaxaanada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam waqti uu rasuulku nala joogay waxaanu bixin jiray zakaatul fidri waxaanu ka bixin jiray zakaatul fidri can kulli sagiirin qof kastoo yar baanu ka bixin jiray iyo wa kabiirin mid weyn xorin mid xora aw mamluukin mid laleeyahay maxaanu ka bixin jiray saacan suus baanu ka bixin jiray min dacaamin cunto ah aw saacan baanu ka bixin jiray min aqidin caano fadhiya aw saacan baanu ka bixin jiray min shaciirin haad ah aw saacan baanu ka bixin jiray min tamrin timira aw saacan baanu ka bixin jiray min zabiibin cinab ah xadiidku wuu dheeray alxadiid rawaahu muslim xadiidka muslim baa soo saaray ikhwati fillah xadiidka wuxuu noo cadaynayaa dhowr arrimood kow wuxuu ka hadlayaa Abu Sa'id al-Khudri nabiga oo la jooga wax ay bixin jireen iyo dadkii ka bixin jireen nabiga oo nala joogaan waxaanu bixin jiray zakaatul fidriga maxay ka bixin jireen qof kastoo maartay ku yar iyo ku weyn mid xor ah mid adoona ayaanu intaas oo dhan oo mas'uulka ay ka yihiin ayaga way waxaan ka bixin jiray buu suus cunto ah ama suus maartay caano fadhiya ama suus haad iyo maartay shaciira ama suus maartay timir ah ama suus zabiib aan ka bixin jiray waxaan rabaa inaan marka halkan aan dhowr arrimood isla dul istaagno awalan ninka qofku zakaatul fidriga muxuu ka bixinayaa intee qof baa laga rabaa inuu ka bixiyo culimadu waxay leeyihiin daabidka iyo waxa maartay hoos horta zakaatul fidriga waanu soo sheegnayo qofka qaadirka ah oo habeenka ciida iyo maalinkeeda salaada ciida la tukanayo qutulyoonkiisa wax ka baxsanaya ka weeyaan kay ku waajibto oo muslima marka Abu Sa'id al-Khudri wuxuu yiri ku yar iyo ku weyn xor adoon intuu waan ka bixinaynaa nabi zakaatul fidriga ninka cid laga rabo inuu ka bixiyaa waxay tahay culimadu waxay dhaaf fuqahadu zakaatul fidri taabicatun lin nafaqay dhahan zakaatul fidriga hadii jeer waxay daba socotaa nafaqada cid kasta oo nafaqadiisa iyo masruufkiisa uu kugu waajibay zakaatul fidrigiisana waajib ay kugu tahay inaad bixiso caruurtaada yar ka ahayd oo nafaqadooda adiga kugu waajibtay zawjadaada waa in kaana zawjada hada laga keeno zawjadaada cid kasta oo adoomahada cid kasta oo nafaqadiisa iyo masruufkiisa ay adiga ku waajib kugu tahay inaad masruufti ay waajib kugu tahay zakaatul fidrigeena inaad ka bixiso waajib weeye zakaatul fidrigeena inaad ka bixisi waajib ay noqonaysaa marka caruurtii yarayd zawjadaadii adoomahaadii adiga naftaadii waxa laalay waxaad mas'uulka ka tahay oo dhan oo nafaqadooda ay ku waajibtay inaad maaragtay zakaatul fidrigi aad ka bixisi ayaa waajib ku noqonaysa labadii waalid ee ku dhalay haday fuqara yihiin ay waxba haysanin nafaqadooda waajib ay kugu tahay idan waxaad ka bixinaysaa maartay zakaatul fidriga waad ka bixinaysaa zakaatul fidriga waad ka bixinaysaa aabaha iyo hooyada ayayda maartay ayayda ama hooyaha dhasho ama aabaha dhasho awuwa ama xag hooyaha ka yimaado ama xag aabaha ka yimaado gidooda usuushaadi way usuushaadu haday fuqara yihiin waajib waxa ku wayna masruufti idan zakaatul fidrigeena waajib ay kugu tahay furuuc
لأن لبق صدح قيبود ويان بني آدم أصل وماشوا كيمده فرع أو أصلا وحي كبير مايا حواشي أو وحي أصلا لدى شو ولا الذي يو هذه الردي وحي كوها رئيسا marka usuusha hadii fuqarayn oo dadkii uu ka yimid oo ka beermay aabihii iyo hooyadii iyo awowii ayidii fuqara hadii yihiin inuu masruufo waajib ku tahay idan zakatul fidrigi inuu ka bixiyana waajib weey caruurta asaga ka beerantay yar yarka ayagana maartay nafaqadooda waajib ku tahay inuu zakatul fidrigi ka bixiyana waajib ku tahay zawjadiisa sidaas oo kale waa in kana bacd ulama ay zawjada hadal ka keeneen oo maartay khilaaf gelinayaan waxa su'aal ku yimid caruurta adoo aad dhashay ee qaangaarka waajib miyay ku yihiin inaad ka bixiso zakatul fidriga haday caruurtu haystaan dadka qaangaarka ee mas'uulka aad ka ahayn maartay qaangaarka haday ayagu xoolo leeyihiin waajib kugu ma adiga taa waa la isku raacsan yahay ayaga iska bixinay laakiin haday fuqara yihiin ayagoo qaangaar ay fuqara yihiin masruufkoodii ma ku waajibay ma ku waajibin waa waajib hadii la yiraahdo masruufkooda way ku waajibtay zakatul fidrigoodina waajib ku noqonaysa hadii la yiraahdo nafaqadooda kuma waajibin oo wadada aad mas'uul ka naqada ka ahayn hadii la yiraahdo inaad ku tadawucdo mooyaane zakadooda kuma waajibin laakiin hadii fuqarayn inaad ka bixisay ba fiican idan masalada halkaas culimadu ay ku kala aragti duwan yihiin caruurtaada waaweyn oo qaangaarka haday xoolo leeyihiin ayada taa waa la isku raacsan yahay in zakatul fidri ku waajibin أما هدينا حول لهين وفقراء يهين مصروف كودي مكو واجب مسكو واجب ويكو واجب تهديل لي هذا علماء قارئ قبان هدي ما نفقه هذا كو واجب تي مصروف كذا زكاة الفطر جينا واجب يكون نقنيسا هدي اللي هذا كو واجبنا زكاة الفطر كو واجب ميسو لكن هذا تكبر حسي ومن باب الإحسان ويان وبنان تاي إذا حديث كان وحنا تصينا يا عبد الله ما أبو سعود الخدري وحولي وأنه كبر حنشر زكاة الفطر كواير iyo kuwa weyn kuwa xor ah iyo kuwa adoomada waa inta mas'uulku uu qofku ka yahay way wixii uu mas'uulka ka yahay mas'uuliyadana waxay keenaysaa nafaqadii iyo masruufka cidda ay ku waajibtay zakatul fidrigeena taabic bay u tahay oo maartay inuu bixiyo ay waajib ku noqonaysaa idan halka ikhwati fillah waxaanu ka qaadanay cidda aad ka bixinaysa zakatul fidriga iyo maartay dadka yihiin inta hadan ka gudubno waxaan u gudbanaa zakatul fidriga yaa la siin zakatul fidriga yaa la siin علماء الله بقى يبقى وكلا بحين قالوا وحين زكاة الفطر وحلا سينا يا أصنافتي الزكاة لغو شيء سيديد النوع هيد أي زكاة الفطر جينا نوع الزكاة ويان زكاة كمذا أي قاس الله سين بيلين وجمهور العلم ساسي قبان قال كلنا وحيلين ماي زكاة الفطر أصنافتي سيديد هيد أو فقراء مساكينتي عاملينتي مؤلفة القلوب كي غارمينتي مارتي ابن سبيل كيو وفي سبيل الله هي لما سين هي لبا عنصر oo kamid oo la siinaya oo maxay yihiin faqir iyo miskiin masaakiin iyo fuqara iyo la siinaya hayalay taas xadiidka Abdullah ibn Abbas in sha Allah soo qaadanay ba ku cadaa oo ku nabiga alayhi salatu wasalaam wa Abdullah ibn Abbas uu nabigu wuxuu farad yeelay zakatul fidriga tuhuratan lis-saa'imi min al-lagwi war-rafath wa du'matan lil-masakin du'ma lil-masakin idan miskiin ba la magac dhabay idan faqirka iyo miskiinkaas أي زكاة الفطر خاص أطهي وأنا سيدا ظاهر كحديث كوكتسنا يوي مؤلفة القلوب إيو غارمين إيو دات سوا كشتو شقي زكاة إيو مجاهدين إيو لسين ما هي مسكين كطعمة للمساكين بل مسكين كأي قودس أطهي إذا قول كاسا المدائن وحوق بدن يهي وحديث كظاهر كسانا كوكتسنا إذا دات كاسا الزكاة لسينا يا وقت جاي الزكاة لبحنا يوان كسو هذا اللي إني مارت صلاة إنت لا آذين كهر إن وقتك ugu fadli badan ay tahay maartay laakiin laba hal maalin ka hor ama laba maalmood ka hor hadaad bixisina fala haraja wax dhibaato ileedahay midaasna mala taana waan ka soo hadalay idan halkaasna ikhwati fillah waxaan ku qaadanay zakatul fidrigi iyo dadka laga bixinayo iyo cidda la siinayo ayadna halkaas aan ku soo qaadanay waxaan kaloon ka soo hadalay lacag in lagu bixiyo in laga xoog badan yahay وجمهور العلم إني راشين لبحينها أيامات النصوص تكتسين أساسا أيضا كتجين وإن كان بعض العلماء إن العقل بحينها أي مارتي بنيين dadka qurbaha jooga lacagta ma bixinayaan lacagta ay dirayaan wakiil bay samaysanayaan marka wakiilkaas gadi raashin buu ka dhigi saasoo u bixinaya idan intaasna waa wixii ku saabsanaa zakatul fidriga iyo xaaladaheeda insha Allah ta'ala waxaan u gudbi doonaa Ilaahay ilaado maaragtay ciidda
iyo waxyaabaha ku saabsan insha allahu tacala baan u gudbi doonaa. ilahi subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa biasmaa lxusna wasifaat alculaa inuu xaqana tuso nuguna irtaaqo xaqa raacitaankiisa. hal mar baa xadiidka ku celinayaa. alxadiidu 260 can abi saciid alkhudriyi radi allahu canhu qaal kuna nukhriju id kana fina rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam zakaata alfidri can kuli sagiirin wa kabiirin xorin aw mamluukin saacan min طacaamin aw saacan min aqidin aw saacan min shaciirin aw saacan min tamrin aw saacan min zabiibin. alxadiid rawaahu muslim. hada wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.